حقتادا halkay colaadu ka badalaan bartankaanu galnaayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dunida iyo danan oo maalin walba aad ka daawataan danan TV 24 waa maalin axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 19 bisha koowaad ee January sanada 2020 qodobada barnaamijka saaxiibayaal hadii aynu ku bilowno kooxda dhinaca sharciga u qaabilsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bixiyay jawaabtii ugu horeysay ee ku aadan eedeymo loo jeediyay madaxweynaha kuwaasi oo sababay in madaxweynaha laga keeno dacwad xilka qaadisa sharciga qaanada ayaa arintan ku tilmaamay weerar halis ah oo lagu qaaday dimuqraadiyadda dokumentiga kooxda oo ka kooban 111 bog ayaa lagu sheegay in qodobada xilka qaadista aysan ku jirin wax muujinaya in dambi uu galay madaxweynaha isla markaana lagu golleeyahay in lagu farageliyo doorashada madaxtinimo ee sanadka dalkaasi ka dhici doonta hadal jeedinta dacwad oogida ayaa lagu wadaa inay bilaabato toddobaadka soo socdo Mr Trump waa madaxweynihii saddexaad inta la ogyahay taariikhda Mareykanka ee wajahaya dacwad xilka qaadisa waxaana lagu eedeeyay kutumasho awoodeed iyo inuu aqalka Congress-ka hor istaag ku sameeyay aqalka Congress-ka ayaa waxa maamula dimuqraadiyiinta mucaaradka ah dacwad ku soo oogay madaxweynaha Mareykanka bishii hore halka sanadka ay ku xoogan yihiin xisbiga jamhuuriga ee Trump ayaa go'aansan doona in madaxweynaha laga qaado xilka iyo in kale dimuqraadiyiinta oo ka jawaabayay sababta madaxweynaha xilka looga qaaday ayaa sheegay in madaxweynuhu uu buuriyay dhaartii uu dalka u dhaartay isla markaana uu meel kaga dhacay aaminaadii shacabka jawaabta ay qareenada bixiyeen ayaa waxa ay ku beeniyeen qodobada ay kooxda sharciga u codsanayaan dacwad xilka qaadista madaxweynaha kooxda oo ay hogaaminayaan Pat Kiplone oo la taliya ka ah aqalka cad iyo sidoo kale qareenka gaarka ah madaxweyne Jay ayaa waxay sheegeen in dacwadda xilka qaadista ay ka eegi doonaan labada dhinacba hadii ay ahaan lahayd hanaanka loo marayo iyo sidoo kale dastuurkaba iyagoo intaa ku daray in madaxweynuhu uusan wax qalad ah sameyn isla markaana aanan loola dhaqmin si cadaalad ah waxay xuseen in qodobada ku jira dacwadda xilka qaadista ay yihiin kuwa xuquuqda dadka Mareykanka iyo xaqa ay u leeyihiin in si xor ah u doortaan madaxweynaha meel looga dhacay jawaabta qaranada ayaa ku soo aadaysa maalin kadib markii uu madaxweynaha soo dhameystiray kooxdiisii difaaci doonta oo ay ku jiraan dacwad oogayaal gaar ah oo hore xilka uga qaaday Bill Clinton madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyay in dalka Ukraine uu cadaadis ku saaray in warbixin sumcad dil ah ay ka soo saarto ninka kula loomaya doorashada sanadka 2020 Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter ayaa u shaqeeya shirkadda Ukraine laga leeyahay halka Joe Biden uu yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka madaxweynaha ayaa lagu eedeeyay in uu taageero military oo gaaraysa 400 milyan ku kacaysa ka hor istaagay Ukraine taasi oo horay ugu qoondeeyeen Congress-ka dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in tan ay tahay takrifal awoodeed waxay sidoo kale lagu eedeeyay in uu hor istaag ku sameeyay Congress-ka isagoo diiday in uu la shaqeeyo dhinaca Faransiiska saaxiibayaal hadii aynu eegno dawladda Faransiiska ayaa heegan gelisay militariga uga sugan bariga dhexe iyadoo u dirtay qalab la socda dhaqdhaqaaqa hawada ee loo yaqaan raadaalka iyo diyaaradaha dagaalka saraakiil ka tirsan xukuumadda Paris ayaa wakaalada wararka ee Reuters u xaqiijisay in ciidanka Jaguar ee ku sugan xeebaha bari ee Sacuudiga la xoojiyay madaxweyne Emmanuel Macron ayaa dhankiisa gelinkii dambe Khamiista sheegay in xiisada coladeed ee ka taagan bariga dhexe darteed ay heegan u geliyeen ciidankooda militariga Faransiiska ee ku sugan Sacuudiga ayaa ujeedkoodu yahay inay xaqiijiyaan amniga boqortooyada oo ay xulufo la ah wadamada reer galbeedka Macron ayaa intaa ku daray in militariga Faransiiska ay kala qayb qaadan doonaan kuwa Mareykanka la dagaalanka kooxda argagixisada ee Daesh dhinaca dalka Kenya saaxiibayaal hadii aynu eegno wasaaradda arrimaha
gudaha iyo amniga Kenya ayaa bilowday dadaalo ay ku doonayso in lagu xaqiijiyo ammaanka gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada u dhow xuduudda Soomaaliya iyadoo tan iyo bishii December ee sanadkii hore ay weeraro isdaba joog ah ka dhacayeen gobolka ayaa arintan waxa ay saameyn ku yeelatay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday shaqaalaha dawladda ee ka soo jeeda gobolada dalka kale ee Kenya qorshaha ugu horeeya ayaa ah in ciidan dhan 300 oo boolis ah oo ku qalabeysan hubka noocyadiisa kala duwan la geeyo gobolka gaar ahaan kuwa Soomaali ah oo ka soo jeeda deegaanada ay ka jirto cabsida ciidankan cusub ayaa waxa ay bedeli doonaan sugidda amniga sida warbaahinta u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan laamaha amniga waqooyi bari oo diiday magaciisa in halka lagu xuso waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan ay gaaraan saldhigyada kala duwan ee ciidanka amniga dadaaladan lagu xaqiijinayo amniga ismaamulada Gaarisa Wajeer iyo Mandera ayaa imaanaya maalin kadib markii guddiga adeega macallimiinta ee TSC ay ku dhawaaqeen in barayaasha aan u dhalan gobolka ay ka soo daadgureyn doonaan deegaanada u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya dhinaca dalka Qatar hadii aynu eegno saaxiibayaal dawladda Qatar ayaa cambaaraysay xiritaanka lagu sameeyay tikadaha Liibiya kuwaasi oo laga dhoofin jiray saliidda sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Qatar warbaahinta Qatar ayaa aad waxay u tabinayaan xirashadii tikada lagu magacaabo Sustina taas oo laga dhoofin jiray shidaalka waxaana la sheegay in ciidamada Liibiya ee isku magacaabay ciidanka qaranka Liibiya ay albaabada iskugu dhufteen tikadaha iyagoo taageero ka helaya Khalifa Haftar ayaa waxa uu aad u dhaleeceeyaa dawladda halkaasi ka dhisan oo dunidu ay aqoonsan tahay balse ninkan ayaa marar badan isku dayay in dawladda dalkaasi heshiis la saxeexdo balse dhinaca iyo culays kaga imaanaya Masar iyo Sacuudiga awadeed uu haatan u saxiixay heshiis nabadeed oo la gaaro tikadaha Liibiya ayaa waxa ay xireen Khalifa Haftar kadib markii ay weerar ku qaadeen halka ay tikadaha ku yaaleen ee magaalooyinkaas iyagoo sheegay in bulshadu ay u daneynayaan si aan wax loo dhoofinin waynu arki doonaa waxyaabaha ka soo kordho dhinaca dalka Turkiga saaxiibayaal hadii aynu eegno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay wadamada Yurub in ay wajihi karaan qatar kooxaha argagixisada hadii uu fashil ku yimaado dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya muuqaal uu daabacay wargeyska Politico ayaa ka hor shirka nabadda ee ka dhacaya magaalada Berlin Mr. Erdogan waxa uu sheegay in hadii Yurub aysan taageerin dawladnimada Liibiya ay noqon doonto khiyaano ka dhana qiimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha Erdogan ayaa intaa ku daray in Yurub ay la kulmi doonto dhibaato iyo hanjabaado dhanka amniga hadii ay burburto dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya kooxaha argagixisada gaar ahaan Daesh iyo Al-Qaacida oo dhibaato ku haya wadamada Suuriya iyo Ciraaq ayuu sheegay in Liibiya uu noqon doonto dal ay saldhigtaan taasi oo cabsi amni ku abuuri karta qaaradda Yurub maskax ahaan waa in ay fikirtaa Yurub hadii ay doonayso nabad waa in ay taageero military siisa xukuumadda Tripoli ayna la shaqeeyaan dawladda Turkiga hore u ballan qaaday in ay caawin doonto Liibiya madaxweyne Erdogan ugu dambeyn sheegay in tababaro ay u fidin doonaan ciidamada Liibiya ayna ka hortagi doonaan tahriibka sharci darrada ee ka jira wadankan ku yaala waqooyiga Afrika dhinaca Lebanon hadii aynu eegno waxa dalkaasi ka dhacay saacadihii ugu dambeeyay banaanbaxyo aad dawladda looga soo horjeeday ciidamada la dagaalanka banaanbaxyada ayaa waxa ay dadka ku kala erayeen gaaska dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha xoog badan ee laga tuura booyadaha kuwaasi oo ay ku kala erayeen banaanbaxayaasha ayaa doonaya in ay iskugu tagaan halka awalka horeba banaanbaxyadooda ay ku qabsan jireen waxa ayna doonayaan banaanbaxayaashan in isbedel lagu sameeyo siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaasi banaanbaxyada ayaa ahaa kuwa aad u xoogan waxaana la soo sheegayaa in dad badani ay dhaawacyo ka soo gaareen sida ay sheegayaan dhaawacyada ka soo gaaray dadka ayaa lagu qiyaasayaa in ay gaarayso 65 kuwaasoo isbitaalada halka ka dhow lagu daaweynayo
halka kuwo kale oo boqolaal gaarayana halkaasi dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen. ciidamaduna waxay ahaayeen kuwo rasaas adeegsanaya, sidoo kale waxay dadka ku kala erayeen in aysan banaanbaxyaashu ay gaarin xarunta baarlamaanka dalkaas. waa ay sida ay sheegeen booliiska ayaa sheegay in ay ka hortagayaan colaad kasta iyo dhibaato kasta oo lagu wajahaya in xal lagu raadiyo, balse xalku kaliya uu ku jiro in wada hadal la sameeyo, dowladuna ay sameyso isbedel. booliiska ayaa waxa ay feejignaan ugu jiraan in ay ka hortagaan banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda dalkaasi. gabi ahaan barnaamijka dunida iyo danan saaxiibayaal halkaas ayaan kusoo afmeeraya. halka aad naga daawanaysaan waa danan TV 24. fadlan subscribe saaro si aad ula socotid xogaha aynu soo gelino barteena YouTube-ka. wixii talo iyo tusaalana waxaad inoogu reebi kartaa qaybta hoose. anigoo Ayuub Aadan Xasan ayaa idiin soo saaray saaxiibayaal, sidaas iyo nabadgelyo.